salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa anigoo ah maxamed sheekh xasan. youtube-ka daawanaysaana waa iftiinka dhalinyarada. fadlan sabscribe saar kanalka haddii ay tahay markaagii kugu horeysay, muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada. mahadsanid. intaan mowduuceena bilaabin ka hor, waxaan jeclaystay inaad isweydiido su-aalo dhowr ah. su-aasha ugu horeysa waxaad isweydiidaa, waqtigeyga inta ugu badan ma adduunyadan ku bixiyaa oo maalayacni ayuu igaaga dhamaadaa, mase waqtigeyga inta ugu badan waan ka faa'iidaystaa? haddaad nafsiyan isqiimeyso, waqtigaaga inta ugu badan waxaa kusoo baxayso markaa meesha aad ku bixido iyo meesha aad waqtigaaga inta ugu badan geliso ama ku lumiso. su-aasha labaad oo ah, sideen ku ahay dhanka barashada ama fahamka guud ee islaamka, oo ma ku fiicanahay taariikhaha islaamka haddii wax layga weydiiyo? tusaale ahaan, haddii maanta lagu weydiiyo su-aal ah ama su-aal ku saabsan islaamka, intuu soo maray taariikhihiisa, haddii wax lagaa weydiiyo, wax ma ka sheegi kartaa oo ma ku fiican tahay dhanka? su-aasha saddexaad, muuqaal kasta ee aan daawado ama waqtigeyga qaaliga ah geliyo, maxaan ka faa'iiday marka uu muuqaalka dhammaado kadib? san wada ogsoonnahay, waxaynu ku noolnahay caalam tiknolojiyadu aada u horumartay. meesha hadeertaan awalkii hore aan ka aadi jirnay oo kale, tusaale ahaan shaleemooyin banaanka u aadi jirnay oo kale, hadeertaan horumarka tiknolojiyada gaarto waxaa kamid ah in qof walbaahi uu heli karo social mediaha waxyaabo muuqaalo u daawado oo qofka markaa uu xiiseeyo. marka muuqaaladaad xiisay sidoo kale maxaad ka faa'iidaa muuqaal kastoo oo aad daawatid? haddaad isweydiido su-aasha muuqaalkan markuu dhammaado maxaan ka faa'iiday? haddaba muuqaaladan idin soo gudbin doono insha allah, waxaan xooga ku saari doonaa barashada waxyaabaha aasaasiga u ah ama lagama maarmaanka u ah inuu barto qof walba oo muslim ah. sidoo kale waxaan jeclahay inaan idin soo gudbiyo muuqaalo ka hadlaya taariikhaha islaamka, sida barashada nolosha asxaabta iyo wixii la halmaala. sidoo kale waxaan jeclahay inaan idin soo gudbiyo adkaaraad aada muhiim ugu ah nolol maalmeedkaaga, sida hurdada markaad kasoo toosto ilaa habeenkii markaad seexanayso. adkaaraad u khaas ah, loogu talgalay inaad ku noolaatid maalintaada aad ku quruxsato. sidoo kale barashada rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam. waxaan kaa codsanayaa intaan muuqaalka bilaabin inaad muuqaalka joojiso, kadibna aad isweydiido su-aasha ah, abtiriska ama nasabka rasuulkeena suuban, khayru khalqillaahi ah oo khaatimul ambiyaai ah, naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee oo dhammaystiran, ma taqaanaa oo ma xifdisan tahay? maanta haddii lagu weydiiyo sheeg nasabka rasuulka ama abtiriska rasuulka oo dhammaystiran, kor ma ka sheegi kartaa oo ma xifdisan tahay? haddaad taqaanid, hambalyo oo aad guuleysatay. haddaadan aqoonina ama qeyb ka mid ah aad taqaan, fursad ayaad haysataa oo waad baran kartaa soo dhammaystiran. ee ka faa'iideyso muuqaalkan, yuusan ku dhaafin. muuqaalka ugu horeeyo ee aan jeclaystay amaba aan isleeyahay allailehe waa midka ugu qurxoon uguna muhiimsan ee aan idinsoo gudbin doono, waa barashada abtiriska ama nasabka rasuulkeena suuban sala allahu calayhi wasalam oo dhammaystiran. waana sida tan: nasbu nabiyi sala allahu calayhi wasalam huwa muxamed ibni cabdillah ibni cabdilmutalib ibni haashim ibni cabdi manaaf ibni qusay ibni kilaab
ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. fadlan wixii talo iyo tusaale ah dhanka hoose ee faalooyinka lagu qoro inoogu reeb. tan iyo muuqaalka xiga intaynu ku kulmayno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.